believe in monsters. waan idin salaamay saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaan sharxi doonaa filin aad iyo aad u xiiso badan kaasoo lagu magacaabo The Sun. haddaba waa kan filinkiiye daawo oo taxadar. filimku wuxuu ku bilaabanayaa xeeb qurux badan waxaana jira markaa dhalinyaro joogtay xeebta kuwaasoo markaa ku caweynayay habeenkii. mid ka mid ah markaa dhalinyarada ayaa wuxuu sameeyay sharci taasoo ah in markaas aan la isticmaali karin inta markaa xeebta la joogo wax telefoona. dhammaan teleefoonadoodiina wuu ka ururiyay wuxuuna ku guray markaas baabuurkay wateen xaggiisa dambe. muddo aan dheerayn laba wiil ayaa waxay soo qaadeen markaas buro weyn oo markaa xab ka buuxo waxayna u egtahay markaas ukun. wiilashuna markaa waxay sheegeen in shaygan markaa ay ka heleen meel markaas u dhow xeebta. dhalinyaradii markaa habeenkaas meeshaas ayay seexatay. subaxii ayaa markaas soo dhow gabar Kayli la yiraahdo ayaa markaa soo toostay. wax yar kadib wiil markaa la oran jiray Mitsi ayaa isna hurdada ka soo kacay. Kayli iyo Mitsi waxay joogaan markaa guriga badbaadada. dhanka kale waxay arkeen saaxiibadood oo ku hurda markaas gaariga. Kayli waxay ku aragtay saaxiibkeed Jonah oo la hurda markaa Janda waxayna rumaysan weyday in Jonah uu xiriir la lahaa Janda. dhanka kale nin la yiraahdo Fancy iyo saaxiibadii Roney waxay ka soo tooseen kursiga dambe ee gaariga halka Marsha markaa iyaduna ay ka soo toostay kursi markaa yaalay xeebta. Kayli waxay aragtay shimbir badeed oo markaas cunto raadis ah ilaa ay si lama filaana markaa ciidda u jiidatay. Marsha oo markaa weli hurda ayaa markaa isku dayday inay kursiga ka degto. Kayli ayaa markiiba qaylisay iyadoo markaa ka codsanaysa inay ka fogaato ciidda xeebta laakiin Marsha ayaa hore ugu soo tallaabsatay markaas ciidda dusheeda ilaa cagaheeda ay si lama filaana markaa uga dareentay culays. waxaadna moodaa in birlab soo jiidatay. qof kasta aad buu argagaxay markuu arkay xaaladda Marsha. waqtigaas Fancy ayaa isku dayay markaas inuu caawiyo Marsha si degdeg ah ayuu markaa baabuurka uga booday laakiin si lama filaana lugihiisa ayaa culays dareemay ilaa markaa isaguna uu bacaad ku nuugay halka wajigiisa aan aragno markaas isagoo ciidda markaa lala sii gelayo. dhinaca kale Marsha way quustay oo la waayay iyadana waxayna kooxdii la yaabeen in subaxaas ay waayi doonaan laba ka mid ah markaa saaxiibadood. waxayna qorsheynayaan inay markaa wacaan saldhigga booliska laakiin uma suurtagelayso sababtoo ah teleefoonadoodii oo dhan waxay ku jiraan markaa gaariga dabadiisa. Mitchi oo lahaa markaa fikrad ururinta teleefoonada gacanta ayaa markaa lagu eedeeyay waxa uu sameeyay. Jonah oo gaariga saarnaa ayaa isku dayay markaas inuu istaaro gaariga laakiin nasiib darro baytariga baabuurka ayaa baktiyay. gaariguna markaas ma awoodo inuu dhaqaaqo. Kayli ayaa markaa tijaabinaysa makhluuqan ku jira iyadoo markaa ugu dambeyntii u adeegsatay gacmaheeda. waxaan aragnaa markaa makhluuqa oo markaa soo jiidanaya gacanteeda. makhluuqana waxaad moodaa markaas inuu u eg yahay timo dhuudhuuban. nin markaa ay dhalinyarada saaxiiba ahaayeen kaasoo markaa lagu magacaabo Gilberti waxuu ka soo toosay hurdada wuxuuna ku xayirmay foostada qashinka. Gilberti wuxuu isku dayay markaas inuu ka baxo foostada qashinka isagoo markaa ruuxaya. asxaabtiisa ayaa isla markiiba ku qayliyay in aanu haba yaraatay dhaqaaqin. Gilberti ayaa markaa ugu dambeyntii aamusay kadib markii loo sheegay in wax markaa ku jiraan ciidda. waxa kale oo aad uga naxay markii uu ogaaday in labadiisa saaxiib ay ku dhinteen bacaadkan. wuxuu ugu dambeyntii ku khasbanaaday inuu markaa u adkaysto qashinkan uu ku jiro waxayna bilaabeen dhammaantood inay quustaan oo ay rajeeyaan markaas in cid u soo gurmato. Roney oo weyday saaxiibkeed ayaa waraaq u qortay hooyadeed. dhanka kale cunto iyo biyo ma haystaan. kadib waxay garwaaqsadeen in dadkii xalay kala soo qayb galay xafladda ay dhammaantood maqan yihiin oo ay jiidatay markaas bacaadku. si kale haddaan u dhigno xeebta waxaa ku haray markaas lixdoodan. meel aan ka fogeyn ayay markaa Kayli ku aragtay ukuntii weyneed ee xalay iyadoo markaa la kala gooyay. Roney waxay kaloo markaa u garatay iyaduna in ukuntan weynay u eg tahay ukun cusub oo dilaacday waxayna aaminsan yihiin in noolahan yaab kale ee ciidda hoosteeda ku jira ay u badan tahay markaas inuu ka mid yahay ukuntan. Jonah wuxuu keenay markaa isna fikrad inuu soo qaato alaabtii ku jirtay boorsada Marsha. xagga dambe ayuu markaa wuxuu ka soo bixiyay laba sabuuradood kuwaasoo markaa uu isku dayay inuu ku socdo isagoo markaa dhulka u dhigay xabad xabad wuxuuna sameeyay markaas inuu ku socdo. markuu ku soo dhawaaday kursigii sabuuradii markaa Jonah uu ku dul socday ayaa dhaqaaqday oo markaa kasii durugtay. Jonah wuxuu isku dayay markaas inuu jirkiisa gebi ahaanba uusan taabsiin ciidda laakiin bahalkii ayaa markaa ka soo baxay ciidda xeebta oo wuxuu taabtay markaa calooshiisii. nasiib wanaag wuu badbaaday oo wuxuu ku guuleystay markaas inuu ku boodo kursi laakiin calooshiisa ayaa dhaawacantay sababtoo ah waxaa qaniinay bahalkii. Jonah wuxuu u egyahay markaa qof sumaysan oo markaa aad ugu dadaalaya inuu markaa u adkaysto xanuunka. Jonah wuxuu furay markaas boorsadii Marsha oo wuxuu ka helay markaas cabitaan mid ayuuna markaa ugu tuuray saaxiibadiis. markuu cabitaankii u tuuray Mitsi si lama filaan ah wuxuu ku dhacay markaas meel isaga u dhow wuxuuna Mitsi ku dhawaaday inuu ka dhaco. Jonahna nabarkii wuu ka sii daray oo uu sii xanuunay wuxuuna kaliya uu jiibsan karaa kursiga. shantoodii ayaa markaas sii wareeray.
waxayna ka fakarayaan siday ugu noolaan lahaayeen xeebtan waxayna ku qasban yihiin inay doontaan markaa teleefankoodii gacanta kaasoo ku jira markaas baabuurka dabadiisa. Rooney waxay markaa qorsheynaysaa inay furto xagga dambe, laakiin markay bilowday inay furto si lama filaana waxaa yimid gaari markaa roonda ah kaasoo markaa aad hoonka u garaacaya. Rooney ayaa si lama filaana u siibatay ilaa markaa ay qabsatay xagga dambe ee baabuurka. Ninka markaa baabuurka wata waa badbaadiye, wuxuuna si sax ah u weydiiyey Kaylee iyo saaxiibkeed waxa ay ka sameynayaan markaa xeebtan xidhan. Kaylee waxay u sheegtay markaas inay wax ku hoos jiraan ciidan xeebta. Askariga ayaa markaas la markiiba ka soo degay gaarigii, waxaana la yaab leh in bahalkii ciidda ku jiray uu ninka lugihiisa waxba yeelin. Way ku jahwareersan yihiin sida ninku ugu socday markaas isagoo waxba soo gaadhin. Si kastaba ha ahaatee, kabaha hargaha ah ee markaas uu xidhan yahay askarigu ayaa markaa u suurtagelinaya inaysan qaniinin ama uga soo dhex bixin meesha. Ninkii ayaa markaa Kaylee iyo Mitchie u sheegay markaas inay u yimaadaan isaga, laakiin labaduba way diideen. Ninkii ayaa cadhooday. Nasiib darro, furihii markaa gaadhiga ninka ayaa ku duldhacay ciidda. Waxa uu qaatay furihii gaadhiga, laakiin markiiba gacantiisu waxay dareentay culays, mana uusan dhaqaajin karin. Gacmihiisa ayaa markaa bilaabay in lagu nuugo ciidda. Ninkii ayaa isla markiiba bahalkii ciidda ku jiray ku buufiyey markaas isbaray uu gacanta ku watay. Nasiib darro, bar ka mid ah markaa cududda ninka ayaa waxay noqotay mid go'an oo dhiig badanina markaa ka socdo. Wuuna dhacay waxaana lagu nuugay markaas isagana dhulka. Dhacdadan kadib Kaylee iyo saaxiibkeed ayaa ku baraarugay markaas inay xidhaan kabo oo ay markaa ka cararaan xeebta. Jende ayaa markaa u soo tuurtay shukumaan Mitchie, laakiin Mitchie ayaa ka dhacay cirifka dabacsan ee markaa alwaaxa. Sidii kuwii hore oo kale, bahalkii ayaa markaa isagana nuugay. Cagihiisa iyo gacmihiisuna waxay bilaabeen inay tartiib u galaan ciidda, halka saaxiibadiis markaas ay daawanayaan iyagoo markaa aan waxba qaban karin. Xaaladan argagaxa leh ayaa Kaylee si lama filaana markaas ay u keentay fikrad, waxayna samaysatay dariiqay markaa ugu tagto Jende. Kaylee ayaa markaa ka soo booday guriga badbaadada oo ku soo booday markaas gaariga, waxayna markaas caawiyeen Rooney oo farta ka dhaawacan. Fartiina waxay markaa kula duubeen mara weyn. Dhan kale Gilbert ayaa bilaabay markaas inuu sii dhaawacmo oo aad u dhiig baxo. Dabadeed Kaylee iyo Jende waxay dejiyeen alwaaxda si ay ugu gudbaan kursiga Jonah. Jende ayaa markaas si tartiib ah ugu gudubtay iyadoo ilaalinaysa markaa dheelitirkeeda. Nasiib wanaag way ka gudubtay. Si la mid ah Kayleena way soo gudubtay, laakiin Rooney markay isku dayday markaas inay soo gudubto way siibatay oo dhulkay ku dhacday. Si degdeg ah bahalkii ayaa markaa Rooney iyadana markaas ciidda ku nuugay. Intaa waxaa dheer, iyagoo markaa aan ogeyn, xayawaanku wuxuu isku dayay inuu markaa galo foostada qashinka, halkaas oo markaa ku jiray Gilbert. Jende waxaa markaa ku soo dhacday iyada fikrad inay markaa aado baabuurka roondada, iyadoo rabta markaas inay adeegsato sidii Mitchie uu horay islahaa markaa u samee. Dabadeed lugaha ayay markaa ku duubatay shukumaan oo markaa ku orday baabuurkii roondada. Cajiib, way ku guuleysatay markaas inay samayso, laakiin Gilbert wuu adkaysan waayey, wuxuuna afka ka soo tufay dhiig. Waxaana aragnaa bahalkii inuu daloolsaday markaas foostadii isagoo markaa ka soo gelaya gunta hoose ee qashinka. Isla markiiba Gilbert waxaa lagu nuugay markaas ciidda. Dhanka kale Jende way siibatay oo madaxa ku dhufatay bir ilaa ay miyir doorsoontay. Hadda kaliya waxaa soo haray markaas Jonah iyo Kaylee, waxayna ku khasban yihiin markaas oo kaliya inta markaa Jende ay soo toosayso ama miyirkeedu soo noqonayo. Waxaa la gaaray habeenkii. Jende oo miyir doorsoon ayaa markaa ugu dambeyntii soo kacday, waxayna heshay markaas doon badbaado oo saaran markaas gaariga roondada. Iyadoo markaas aan fakirin ay isla markiiba doontii soo qabatay, waxayna ku soo qaaday Kaylee iyo Jonah. Markay soo gaareen gaariga, Jonah wuxuu u muuqdaa markaa mid aad u dhaawacan. Si lama filaana ciidda dhexdeeda markaa waxaa ka soo baxay bahal weyn. Bahalku markaa waa mid ifaya, wuxuuna bilaabay markaas inuu weeraro Kaylee. Kaylee ayaa markaa ugu dambeyntii ay ku soo dhacday fikrad kale, waxayna soo qaadatay taangi shidaal ka buuxo oo markaa ciidda dusheeda ay ku shubtay. Waxayna ogaatay markaas inay ku khasban tahay inay disho bahalka. Sidoo kale waxay samaysay inay markaa dab shido. Ugu dambeyntii bahalka wuxuu ku dhimanayaa dabka. Nasiib wanaag, Kaylee waxaa markaa u suurta gashay inay fuusho gaariga oo halkaa markaa ay ku badbaado. Dhanka kale Jonah oo markaa dhaawacnaa ayaa markaa isaguna dhintay. Kaylee ayaa gacantiisa markaas dhunkatay. Ugu dambeyntii Kaylee iyo Jende oo aan wadi karin markaas gaariga waa inay markaas sugaan gargaar maadaama aysan baabuurka wadi karin. Maalintii xigtay, nin ayaa markaas si lama filaana muraayadda gaariga ka eegay oo toosiyey. ninkuna wuxuu ahaa markaa mid ciidda dul taagan isagoo markaa wax bahalay markaas uusan cunin. Ugu dambeyntii Kaylee iyo Jende way soo degeen waxayna dul istaageen ciidda, labadooduna waa ammaan. Filimkuna wuxuu ku dhamaaday xeeb kale oo markaa ay ku dabaalanayaan koox bahal ah. Nasiib darro, dadka soo booqan doona xeebta ayaa noqon doona dhibanaha xiga. haddii marka aad xiisaysid muuqaalada noocan oo kale ah, fadlan channelka subscribe saaro si markaa aysan ku dhaafin muuqaal kasta markaas aan soo dhigno. Sidoo kale muuqaalka like garee si markaa dad badan uu gaaro. Waana kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalka ilaa halkan aad soo gaadhay. Intaan muuqaalka xiga markaa ku kulmayno waxaan kaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.